waan salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono taran nololeedka tishada caanka Irani Muqdiji taas oo maanta u dabaaldegaysa sanad guurada dhalashadeeda haddaba waxaan idin wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah saaxiibayaal balse haddii aad ku cusub tahay channelkani oo aad kamid ahayd saaxiibadii ku xirnaa jiray channelkani kale ee Bidaayo Show waan ku soo dhaweynaynaa haddaad tahay saaxiib cusubna sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo saarto wixii ra'yi ama fikrad aad qabtana comment hoos inoogu reeb si share kale oo la wadaag asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal maanta waxaa sanad guurada dhalashadeeda 44aad u dabaaldegaysa aan dhahay saaxiibayaal tishada caanka Irani Muqdiji taas oo kamid ah tishadaha lagu jecel yahay fanka Hindiya khaasatan shirkadda aflaamta sameysay Bollywoodka hadda waxaan eegi doonaa saaxiibayaal tishada Irani Muqdiji waxyaabaha ay xiiseyso iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay ayaan eegi doonaa saaxiibayaal tishada markaan eegno Irani Muqdiji waxa ay dhalatay maanta oo kale 21 Maarch sanadii 1978 da'deedu waxa weeyaan 44 jir waxayna ku dhalatay magaalada Mumbai ee dalkaas India ay ku dhalatay saaxiibayaal tishada lagu magacaabo Irani Muqdiji waxay leedahay naanaysiyo u gaar ah waxaana kamid ah naanaysyada ay leedahay ama nickname-keeda markaan eegno Gandala Garal Gandala waxa weeyaan xaafad ama magaalo yar oo Hindiya ka tirsan waana heestii haddii aad taqaanaan heestii gulaam ku jirtay aadi ka Gandala waxaan aadaynaa Gandala weeyaan meeshaasi yacni Gandala lagu xusay ama heestaas ayaa lagu xusay marka waxa lagu yeeraa gabadhaani Gandala Garal ama Babi markaan ayna gabadhaani waxbarashadeeda ama heerkeeda waxbarasho waxay ka baxday iskuul lagu magacaabo Miniji Cooper High School ka oo ku yaala magaalada Mumbai dhan kale sidoo kale waxay ka baxday college kale lagu magacaabo asagana Mithai College oo asagana ku yaala isla magaalada Mumbai saaxiibayaal gabadhan markaan eegno filimkeedii ugu horeeyay ee Bollywood ay ka soo muuqata waxa weeyaan waxa lagu magacaabo Raja Ki Aayenge Bharat Soomaalidu way wada yaqaanaan maalaha qaaga dhacsa ayay u yaqaanaan 97 ayuu soo baxay filimkaasi saaxiibayaal laakiin filim kale oo kaga horeeyay ayaa jiro dhankaas Bengali ah waana filimkeedii ugu horeeyay yani marka la eego ay sameeyso laakiin Bollywood waxay ku soo birtay 97 filimkeedii ugu horeeyay waa Raja Ki Aayenge Bharat ama maalaha qaaga dhacsa waxa uu taqaanaa saaxiibayaal hadiidan waxa aabaheed lagu magacaabo Ram Muqdiji waxa uu ahaa jiray director ama agaasime halka hooyada lagu magacaabo Krishna Muqdiji iyadana sidoo kale waxay ahaa jirtay gabar fanaanad ah ama heesa ay ahaan jirtay gabadhan waxa la dhashay hal wiil oo ka weyn ka oo asagana lagu magacaabo Raja Muqdiji saaxiibayaal oo xawiyaan la sheegay inuu yahay soo saar iyo sidoo kale agaasime markaan eegno gabadhan waxyaabaha ay xiiseyso saaxiibayaal waxay gabadhan aad u xiiseysaa markaan eegno dhanka aktarada waxay aad u taageertaa jalaaga caanka Amitabh Bachchan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan dhanka hablahana atishadii geeriyotay Zardevi iyo sidoo kale Saif Ali Khan hooyadiis maamada lagu magacaabo Sharmila Thakur ay aad u taageertaa aflaamta xiiseysana waa filimka caanka Titanic kaas oo la daawado sanadii 1997 waana filim Hollywood ama Mareykan markaan eegno gabadhan iyo sidoo kale dhanka sportiga waxay aad u jeceshahay ciyaaraha lagu magacaabo ball sport waa ciyaaraha yani fardaha la saaran yahay ee usha lagu tuurayo tennis kaliiska weeyaan ay aad u xiiseysaa markaan eegno gabadhan iyo xiriiradeeda jecel ama xiriirada jecel ee soo sameysay waxay xiriir jecel soo wadaagtay aktar caan ah oo laga xusi karo Govinda sidoo kale waxay xiriir jecel soo wadaagtay aktarka caanka Abhishek Bachchan ama wiilka Caleer waxa taqaan ugu dambeyn waxay isguursadeen agaasimaha iyo sidoo kale soo saaraha caanka ah ee lagu magacaabo Aditya Chopra waa Ali walaalkiis ka weyn weeyaan kaas ayay markii dambe isguursadeen saaxiibayaal sanadii April 2020 markay ku beegnay sanadii 2014 waxay u dhashay gabarta oo lagu magacaabo Dera hadda gabadheedii muuqatay ximbaarsan tahay gabadha lagu magacaabo Irani Muqdiji saaxiibayaal markaan eegnana halka filim waxay ku sameysaa lacag dhan 2 ilaa 3 karoor ayay ku sameysaa hantideedana waxa lagu qiyaasaa ama markii ugu dambeysay lagu qiyaasay inay haysato 25 milyan oo dollarka Mareykanka saaxiibayaal markaan waxaan eegi doonaa xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa trishadan lagu magacaabo Irani Muqdiji taas oo maanta u dabaaldegaysa sanad guurada ee dhalashadeeda 44 saaxiibayaal xaqiiqada ugu horeysa trishadan ka wadaagi doona waxa weeyaan waxa leeyahay Irani Muqdiji waa trishada kaliya ee Bollywood ka xamaalatay taas oo hal sano gudaheed ku guuleysatay laba ay abaalmarinta Filmfare 2 jeer waxay ku kala qaadatay trishada ugu fiicneed oo filimkii Hamtum lagu siiyay sidoo kale trishada caawiyad ugu fiicneed ama trishada caawiyad ayaa lagu siiyay sidoo kale abaalmarintaasi waxayna ku qaadatay filimka lagu magacaabo Yova oo sanadii 2005 soo wada baxay labadaas filimba 2005 ay soo wada baxeen saaxiibayaal xaqiiqada labaad Irani Muqdiji waxay ahayd duq koowaad ee aflaamta kale ah filim lagu magacaabo Mani Madnam Dilse Atosh Gawrikar Lagan Munabay oo MBBC loo yaqaan laakiin dhammaan ma aysan jilin filimkaasi sababtoo ah waxay ku mashquulsaneed aflaamo kale sida Shah laga qaad saaxiibayaal xaqiiqada saddexaad ee tiridan ka wadaagi doona waxa weeyaan waxa leeyahay Irani Muqdiji waa tijada kaliya ee la kulantay wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan ka lagu magacaabo Pervez Musharraf misana waxay yani la sameeyay ama qada sharaf
ayay weliba la wadaagtay marka la eego ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Pakistan gudaha dalka India ayayna kula wadaagtay hotel ku yaala magaalada Mumbai ayayna ku wada kulmeen sanadii 2005 saaxiibayaal markaan eegno xaqiiqada afraad Rani Muqraj waxa leeyahay filimkeedii ugu horeeyay ay ka soo muuqato Raja aynkii barada maalaha qaaga dhacaso ma aha waa filim Bengali saadahay hore intuu uu sheegay oo lagu magacaabo Pyar Vol waxa la daawaday sanadii 1996 saaxiibayaal sanad hal sano kadib ayayna Bollywood ku soo birtay xaqiiqada ugu dambeysay tirshidaan inta kala wadaagi doona hawiyaan saaxiibayaal Rani Muqraj dumaashigeed Uday Jabra ama Ali waxay ninka ay Soomaalidu yaqaanaan weeyaan ayaa iyada iyo ninkeedaba u baaxshay naanayso kala ah ama naanayso qosol jabi ah ka oo ay ugu kala yeeray Voldemort iyo sidoo kale Vavai Voldemort يعني labadaas naaneys ayuu ugu kala yeeraa marka guriga la wada joogo ama uu soo booqanayo saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gogooynahay xogtii iyo xaqiiqooyinkii aan kala wadaagay tishada caanka Rani Muqraj taas oo maanta u dabaaldegaysa sanad gudaha dhalashadeeda 44 saaxiibayaal fadlan haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe inoo saar wixii raayay top comment-ka inoogu rabsi share gareeyo la wadaaga asxaabtaada ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena